waxbaha ka walwalinina doorashadan la sheegay ee markii magacayga lagu rido kiisa xag ka soo saaraysa ayadana qabyo uga tagi doona dowladda sida la sheegay awoodii xukun haysatay tan ma bahaysataba maxaa looga baqaa marka waa tacbaannimo iyo nafjeclaysi wax looga baqaayo waxa iiga daran marka waxay tahay madaxweynihii maalmahan wuxuu ku waashay inuu tusaale u soo qaato madaxweynihii ku horreeyey oo yidhaahdo anaa saas dhihi jiray oo haddaad dhihi jirtay waxa xumaayeen madaxweynuhu ma iska dhaaftid waxaan rabnaa marka inaan fiirino maxaa dowladdan markaan qiimeynayno aan ka eegaynaa dowladdan soo madaxweynaha ku kambeyn gareeyaba waa dowlad qabyo wax kasta qabyo uga tagtaa dagaalkii shabaabka maxay uga tagtay qabyo madaxweynaha wuxuu nagu wareeriyey systemka dalkan bedelaya waxaan ka dhigayaa system madaxweynenimo ama nidaam ri'aasi xaggoo uga tegey qabyo isaga unbaa iska dhaafay wuxuu yidhi etoobiya nagu soo duushay waa iska dhicinaynaa waa la dirinaynaa cadow hadduu shabaab ahaa jira cadow kaloo waxaa jiro la yidhaahdo etoobiya xaggoo uga tegey qabyo asoo abbey la dhaansi garaynayo unbaa aragnay wuxuu yidhi jubbaland yaan axmedoobe waaran u jaray ha la soo qabto 1500 oo askariyo diray waa soo dhammaaday askartii waa soo ordeen wuxuu uga tegay ayadiina qabyo marka sidiisaba odayga waa oday iska qabyaba waxbaha ka walwalinina doorashadan la sheegay ee markii magacayga lagu rido kiisa xag ka soo saaraysa ayadana qabyo uga tegi doona saddex sawir oo waxaa inii sheegayaa dowladda uu hogaamiye madaxweyne xasan sheekh saddex sawir bigjar ay aad caan ugu taajiro midka koowaad waa gabar yar oo iskuul ka soo noqotay ee dharkii iskuulka qabta ee gurigeeda dunsan kor timid waa sawir koowaad ka labaad askari soomaaliyeed oo kenya iska dhiibaya ma tahay mise maaha ku been abuurinaynaa mid saddexaad waa dad masaakiin oo meedow qabuuraha la faagayo waad ii sheegaysaan haddaa calaamad kale oo ku suntan tahay dowladdiisa ay jirto waxaa dheer oo ka sii daran in aad arkayso 2,000 oo askari soomaaliyeed oo qax ah askar qaxda lama arag askariga ama waa dagaalamaa ama dib u gurasho dagaal uu sameeyaa laakiin askari qaxaya ma jiro askar tignika wadato hub wadato oo qaxaysana waan aragnay waa dhibaato annaga waxaan u haynaa haddii la yidhaha hala qiimeeyo dowladdan sawiradaas waaye waxa qiimeyntooda iska leh waxaa is weydiin mudan marka xaggee aan maanta taagannahay maxaase mustaqbalka uu noqonayaa inaan isla eegno ayadan waxaa dadkaas xabtayda iga horreeyay ka dhawaajiyeen halkii xisbi ee weynaa ee habeen dhaweed la dhisay dadaa waxay la soo istaageen fagaaraha war annaga xisbigaan dhisannee idinkuna xisbi dhista horta waa la sheegay si fiicanaa loo sheegay xisbiga horta wasiirada labaa la kala dooransiiyey xilka ama xisbiga waa facts kulli waxay dhaheen waxaan ka tirsannahay xisbiga madaxweynayaasha dowlad goboleed saddexdii la joogtay waxaa la yidhi ama waa liinku soo duulaa ama xisbiga soo gala ama waa liin duminaa kulligood xisbigay soo galeen madaxweynihii waa la socotaan waxaa xoogaa uu dhibka badnaa oo gorgortan galay koonfur galbeed